zakaa layna faray nacam aakhiro iyo janno iyo gufraan dunuub iyo ajaro waaweyne waa ku soo arooreen laakiin ilahay wuxuu leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakiihim baa la yidhi waxaad ka qaadaa sadaqo zakawaad ka qaad maxaa looga qaadayaa litathiiri nufuusi wa taskiyatiha in nafta lagu daahir yeelo lagu nadiifiyo ayaa looga qaadaya in naftaada aad ka daahir yeesho bakhaylnimada iyo shaxiixnimada iyo keli noolaanshiyaha iyo selfishnimada iyo anaaninimada waxaasoo dhan inaad ka daahir yeesho maxay wax kastoo xumaa ah although ay yihiin 2.5% laakiin waa 2.5% usuushaadoo dhan laga qaado xoolahaad haysatoo dhan inta laysku daro ayaa 2.5% laga qaadaa haddii sideeda loo qaado oo systemkii loogu talagalay loo bixiyo dadka qof faqriya laga dhexeli maayo malaa dadku tusaalahay wax ku gartaan idiin soo qaban maayo tusaalo qarnigii koowaad ama labaad ama saddexaad waayo waxaa odhanaysa berigaa dadkaa yaraa iyo berigaa aan hadda idiin soo qabto tusaale ah oo weliba dadka soomaaliyeed ah nin dhakhtaroo soomaaliyeed ayaa tolkii u tegey dabeetana wuxuu yidhi waxaan rabaa reerka inaan qof faqiir aanu yeelanin waxaan rabaa buu leeyahy reerka inaan qaadno zakada ururinno dabeetana aan bixinno reerkii badh waa aqbaleen badhna waxay yidhahdeen war mala waxaan suurtagal maha qaybtii aqbashay odayadoodii buu saray calaa kulli xaal zakadii buu ka ururiyey dabeetana wuxuu yidhi waxay ii soo qortaan reerka wixii faqiir oo dhan wixii faqiirka ahay oo dhan baa liiskoodii la keenay sanadkii koowaad qayb buu siiyey lacagtii waxaanu yidhi sanadka dambe waa inaad zaka bixis gaadhaan ma aha 10 shilin maaha waa ninku xoolo uu dhaqan karo sanadka dambe zaka isna uu bixin karo muddo yar markuu waday qabiilkoodii oo dhan ma jiro qof zaka qaataa waxay noqotay zakada reerku intuu ururiyeen reeraha kale la siiyo waayo reerkoodii waa wuxuu gaadhay maxay xadul kifaaya buu gaadhay qof zaka u baahanay kuma jiro maaha tusaale aan ka keenayno qarnigii labaad iyo koowaad iyo waa hadda iyo soomaaliyadaa baabaasanay caynkaa weegaa taqaaniin ayuu wuxuu ka dhigay reerkoodu inaanu noqonin dad zaka wada bixiya inay noqdaan oo qof aan zaka bixiniba inaanu reerka ku jiri karin idan waxaan leenahay zakadu waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo dhanna waa takaaful ijtimaaciya waa qaab loogu talagalay bulshada in faqriga lagaga saaro waa xoolo laga qaadayo dadka wax haysta oo la siinayo maxay dadka aan waxba haysanin la siinayo waxaan leenahay markaa nolosha raad bay ku leedahay waxay kaloo tahay oo nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tu'khad min aghniyaa'ihim wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim waxaa laga qaadaa buu nebigu yidhi dadkooda wax haysta oo waxaa loo celiyaa maxay dadkooda aan waxba haysanin macnaheedu waa maxay waa in bulshada muslimka ay hesho waxaa loo yaqaano atakaaful alijtimaaci isku filaanshiyo waa inaan bulshada qof baahani ku jirin innagu sidan aynu u isticmaalleen midhayntan iyo waxa kani waynu sii macno tirray laakiin zakadu waxay ahayd institution dhan oo islaamiya oo si gaara wax looga qaado waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo oo zakadu miyay ku filantahy waxay yidhaahdaan usuulu zakaat sida loo qaado iyo midbaa wuxuu isbarbar dhigay iyo cashuurta waddanka maraykan u qaado haddii nidaamka zakada loo qaado buu leeyahay cashuurtana loo qaado cashuurtu waxay noqonaysaa buu leeyahy 3% haddii nidaamka zakada loo qaado zakaduna waa imisa 2.5% weeyaan almost dalka maraykan haddii zaka laga qaado wuxuu ku dhow yahay cashuurta laga qaado dee laakiin waxaa kala gedisan labada system oo cashuuruhu inta badan wax mahaysatada laga qaadaa wax haysatadana lagama qaado soo saa ma ogadin cashuurtu masaakiintiina kani maxaa bixisaan 40% 30% 35% waxaasaa dadkan xoogsatadii bixiyaan dadka wax haystaana maxay bixiyaan waxay bixiyaan 10 bilyan buu haystaa waxaa la leeyahay inkamkaaga sanadkani muxuu ahaa 2 milyan 2 milyan baa cashuurta laga qaadaya 10kan laga qaadi maayo 10kaa marka lagu sii darana sanadka dambe labadiina laga qaadi maayo cashuur kan baa laga qaadi waxa mar la cashuuro mar dambe lama cashuuro
laakiin zakada see loo qaadaa dee 10 iyo 2 kuu soo kordhayba isku daro intoo dhan baa 2.5 laga qaadaya marka imka systemka dunidu cashuuraha u qaadaya waxa kana inta badan waa haysatada waxaa laga yaabaa kamberiga ugu weyn in la yidhaha intaana investment buu geliyay intaana saas u yeelay intaana cashuurtiisu volfa laga yaabaa cashuurteedu inay 0 noqoto miskiinkaaga kana waa 30% ama waa 35 yani systemka loo dhigay waa system ninka wax haystaa dee dejiya qaanuunka ilaa idinkuma dejisaane masaakiintana waa la raraa